sababta ilma-galeenka ugu soo baxaan wuxuu bilowdaa markuu isu soo ururo ilma-galeenka. Waxaa inta badan filimada laga daawadaa inay si fudud ilmaha ku dhalanayaan. Waxaa lagu jilaa inay hooyadu dareento xanuun kooban kadib. waxaa si lama filaan ah ku soo muuqda ilmaha. Marka runta laga hadlayo taaba ay ka duwan tahay, waxay calaamadaha foosha mararka qaar noqon karaan mid khiyaano ah. Calaamadaha foosha ugu caansan waxaa ka mid ah waxaa khafiif noqonaya mise yaraada ilma-galeenka. ilma-galeenka qaybta hoos waxaa lagu magacaabaa cervix. Foosha ka hor dherer ahaan waa 3.5 ilaa 4 sentimitir. laakiin haddii ay foosha bilaabato wuxuu noqonayaa mid khafiif ah mise yaraada. waxaa dhici kara inay hooyadu dareento xanuun aan badnayn mise xanuun la'aan. waxaa furma cervix-ka inuu furmo waa calaamad kale lagu aqoonsado foosha. waxay tiimka caafimaad ee hooyadu daryeelayso cabirayaan inta sentimitir cervix-ka furmay. wuxuu ku bilowdaa eber kuna dhammaadaa 10 saacadaha hore. inuu cervix-ka furmo wuxuu qaadanayaa waqti, laakiin markuu soo gaaro 7 sentimitir wuxuu ku soconayaa si dhaqso leh, waayo waxaa korodhaya isuso ururidda uu samaynayo ilma-galeenka. waxaa korodha dhacaanka xubinka taranka. xilliga ay hooyadu uurka leedahay waxaa cervix-ka xidha dhacaan adeega si bakteeriyada loogu ilaaliyo inay gasho ilma-galeenka. marka ay fooshu soo dhawaato wuxuu dhacaankaasi u soo dhaqaaqaa dhanka xubinka taranka hooyada. taana waxay hooyadu ku keeni kartaa inuu korodho dhacaanka ka imanaya xubinka taranka. dhacaanka waxaa lagu aqoonsan karaa waa dhacaan nadiif ah, wuxuu leeyahay midab casaan khafiifan. waxaa macquul ah dhacaanka inuu foosha maalma ka soo horeeyo mise inuu bilowdo xilliga hooyadu ay foolanayso. haddii uu jiro dhiigbax badan sida kanaacadada, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow. waxaa hoos u soo daadega ilmaha. madaxa ilmaha wuxuu u soo daadegaa dhanka miskaha mise belfiska. waxay hooyadu dareentaa fudayd. nidaamkan waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa lightening, micnahaan loogu jeedo fudayd. waxaa sidoo kale isbedela qaabka caloosha. waxaa dilaaca xuubka ilma-galeenka. ilmaha ku jira ilma-galeenka wuxuu ku dhex dabaalanayaa dhacaanka lagu magacaabo amniotic fluid. waxaa dhacaankaasi isku hayo xuub lagu magacaabo amniotic sac. xilliga foosha waxaa dilaaca xuubka amniotiga. kadib hooyadu waxay isku aragtaa dhacaan aan badnayn ka imanaya xubinka taranka. wuxuu dhacaankaasi noqon karaa mid si joogto ah u socda mise mid mararka qaar soconaya. haddii ay dhacaankaasi isugu shakido, hooyadu waxaa wanaagsan inay la xidhiidho dhakhtarka ugu dhow. waxaa bilowda xanuunka foosha. bilooyinka ugu dambeeya uurka waxay hooyadu wajahi kartaa xanuun u dhowkan foosha. waxaa xanuunkaasi afka qalaad lagu yidhaahdaa Braxton Hicks contraction. waxaa sidoo kale lagu magacaabaa foosha beenta ah. xanuunka foosha runta ah waxaa lagu aqoonsadaa waa xanuun joogto ah, xanuun laga dareemo caloosha iyo dhabarka gaar ahaan qaybta hoose. xanuunka kuma xidhna dhaqdhaqaaqa iyo hooyada